waxaynu ku jirnaa ayaamihii la aqbalayay ducada ducadeenna allaha aqbalo dadaalkeennana allaha suubiyo diintana allahayna waafajiyo ha nagu sugo aayadaha soo socda suuratu ibraahim aakhirkeeda waxaynu dhegaysanaynaa nebi ambiyada ka mid oo nebiyadii u fadli badnaa ee nebi ibraahim oo ducaysanaya rabbanaa inii askantu min duriyatii biwaadin gayri dii zarci cinda beytuka almuxaram rabbanaa liyuqiimuu الصalaaة ilaa aakhiri اlaayaat ilaa 9 jeer buu rabbi rabbanaa rabbi ku soo celcelinaya marka waxaad arkaysaa baahida aynu u qabno ducada kol hadday ambiyadii ululcasmiga ahaa ee u fadliga badnaa sidaa u ducaysanayaan marka ugu horeyn ducada xukunkeedu waa waajib waxay ka mid tahay waxyaabaha waajibka ah ayna saaran waa ilaahay baa ina amro yihi udcuunii astajib lakum amar buu bixiyo ibarya buu anna waxaan ballan ku qaadaya inaan idin aqbalo ducadu xikmad bay leedahay oo xikmadda ku jirtaa waxa weeye balaayada ku haysatana inuu ilaahay kaaga dulqaado ta soo socotana kaaga joojiyo cibaadadana waa ka mid adducaau huwa alcibaada waa xadiidkii saxiixa ah cibaadada laftigeedii weeye ducadu adducaau mukhu lcibaada mar kale cibaadadu waa ducadu waa dhuuxa cibaadada shay walba dhuux waa waxa asalka ah waxaa markaa aynu u soconnaa dhowr qodob inaynu ku sheegno aadaabta ducada si aqbalkeedu u dhowaado iyo ijaabadeedu amarka ilaahay in aynu qaadanno subxaana wa tacaala waxaa kowka ah in ilaahay keligii la baryo sida aynu arkayno mar walba ilaahay cid iskuma lamaanaynayo ilaahay wuu ka wen yimid cid lagu lamaaneeyo haddaad ilaahay cid ku lamaanayso waxay ka dhigantahay iguma filla ilaahay iguma fille hebel ama heblaayaan ku kabaya waidaa sa'alaka cibaadii cannii waa keligii udcuunii astajib lakum waa keligii iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waa keligii wax kalea lagu darayna ilaahayo oo hebelowdii soomaalidu halkaasay ku hadhay ilaahayo awliye hebelow ayay odhan jireen awrkeena aynu ku kicinayna ilaahay awr iyo ariba uu kugu filan yihi subxaana wa tacaala iyo wax ka badanba taas waa mid waana aadaabta waajibka ah aadaabta waajibkaa waxaa ka mid a inuu dee qofku xalaal cun yahay xadiidkii saxiixa garanaysaa nebigu wuxuu inoogu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofku hadduu xaaraan cunayo ama dharkiisu xaaraan yahay ama dhowligiisu xaaraan yahay ama wuxuu cabaya ama wixii lagu soo koriyey dee sidee loo aqbalaya wada haysaan xadiidkii 40 ku qoran faanaa yustajaabu lidalik sidee looga aqbalaya buu lehy rasuulku sala allahu calayhi wasalam waana halka laynaga raacay intay u badan tahay maanta intaynu liqliqa badinno iyo qaadqaadashada ayaynu odhanaynaa roobkii baa di'i waayayoo balaayadii baa kici weydayoo dalkii baa isbedelayoo waa dalaynu inagu qiiq ku neefnay iyo sun marka xalaasha ha la ogaado qofku hadduu doonayo inuu mustajaabu dacwo noqdo qof ducadiisa la aqbalo waa inuu xalaal cun yahay xalaal cun waa inuu noqdaa dadkeennii hore dee jeenigaasay iska cuni jireenoo xoolahooda iyo cadkooda iyo caanahoodaas iyo waxaan walaaqane baac mushtariga iyo khiyaamada iyo balaadaas way ku yaraayeen markay ilaahay baryayaan markiiba waa loo aqbali jiro aadaabta ka saddexaada waajibkii waxa weeye in markaad ilaahay baryayso dembina ha ku ducaysanin qaraabogoysnimana ha ku ducaysanin rasuulku wuxuu yihi salى اllahu عalayه wasalam midkiin waa la aqbalayaa ducadiisa maa lam yadcu biiثmi aw qaطicati raxm haddaanu qaraabogoysnimo ku darin ducadiisa ama dembi ku darin waa caam haddaad wax dembiya ilaahay barido ama dadka habaarayso ubadkaaga ehelkaaga ummadaada lagaama aqbalayo adaabta waxaa ka mid a afraad in ilaahay subxaana wa tacaala la qadariyo la tixgeliyo ata'adubu maca allah inaad ilaahay ka edebsato markaad baryayso waxaa ka mid a siyaabaha looga edebsanayo hasaluugin ilaahay waanu barinayoo waxbaba naga aqbali waa maxaanu barinay aanu ku celinaa tii hore mu aqbalin wuu ku aqbalay adaan ogeyn haddaan maanic xaggaaga ka imanoo wax ducada diida xaggaaga ka iman ama balaayo soo socotuu kaaga joojinayaa ama aakhira buu kugu dibdhigayaa kolleyba uu aqbalaya waayo ballan buu qaaday rabbi subxaanahu wa tacaala aadaabta waxaa ka mida inaanu ku raacinin ereyga ah in shita waa inaanu raacinin ducada
hadduu in shiita raaciyo iyadana waa lagama aqbalayo ilaahay allahuma taqabal ducaa'i in shiit waa xadiidka rasuulka sida ku sugan sala allahu calayh wasalam ilaahu ducadayda aqbal haddaad doonayso waxaa laga fahmaa dee qof aad dirqiyi karto ama xoog wax kaga qaadi karto ama cid kalood ku bedelata aada hayso hadduu dooni waayo maxaa jira baa isweydiin leh hadduu dooni waayo meel kaloo tagta ma haysataa meel kale ma haysid haddaba ilaahaaga ha isku taagin hana isku dhararinine mar walba ku celceliyun ducada badi waa adaabtii bay ka mid tahay ilaahay aad ka edabsanaysa subxaana wa tacaala adaabta waxaa ka mid a cadamu rafci sawt inaanad qaylqaylinin dad baa salliga la qaylinayo ducada la qaylinayo magaaladao dhan gaadhsiinaya waxay u baahan yihin khushuuc siiba markaa si gaara u ducaysanayso arbicuu calىa anfusikum fainakum laa tadcuuna asama walaa gaa'iban rasuulku salى اllahu alayh wasalam wuxuu le waxba haysdhibine naftiina marxiya oo u kaadiya ma baryaysaan mid dhegala ama idinka maqan ilaaha baryaysaan wuu idin dhow yahay wuu idin maqlayaa adaabtay ka mid tahay asxaabtiisii buu nebigu ku waaninaya calayhi الsalaatu wasalaam sidaa ducada adaabteeda waxaa ka mid ah asmaadiisiiyo wax waliba cid waliba afgarashay leedahay markaynu doonayno ilaahay inaynu afgaranno waynu doonaynaaye inaynu ku bilowno ammaantiisa iyo mahadnaqiisa iyo asmaa'adiisa magacyadiisa iyo tilmaamihiisa inaynu ilaahay ku barino subxaana wa tacaala walilaahi alasmaa اlxusnaa fadcuuhu biha magacyo aada u qaaliyahoo wanaag badan buu ilaahay leeyahay ku barya buu leeya ilaahay qul idcu llaha aw idcu raxmaan ayamaa tadcuu falahu lasmaaء اlxusna araxmaan allah kaad doontaan ilaahay ku barya oo magacyo wanaag badan buu ilaahay leeyahay ku ducaysta buu ilaahay leeyahay marka ya raxmaan ya raxiim markaad xooga akrida ducadaba asmaadaad ku daraysaa siyaabuhu ilaahay ku aqbalo ayaa ay ka mid tahay waxyaabaha ducada runtii qiimaha u yaalo waxaa ka mida ama aadaabteeda inaad ka faa'iidaysato waa sababta aynu iminka u sheegayne waktiga wanaagsan meesha wanaagsan xaaladda wanaagsan cidda wanaagsan intaba meesha wanaagsan markaad joogto ducada aad baad u badanaysa bayt ullaahi alxaraamka waktigaad xajaysa iyo waktigaad cumraysanaysa iyo masaajidada ilaahay oo dee goobaha u fadli badana markaad joogto ducada aad baad u badanaysa iyo waktiyada qiimaha badan sida ramadaan oo kale markaad sooman tahay iyo markaad afurayso waktigaynu habeenkii suxuuranayn malaa dad badan baan ducada xusuusaninba iyo waktigaa qiimaha badane aynu kolba inagu soo noqnoqonaye la yidhaha laylat lqadriga jumcada waktigii saacatulijaabaha adaanka iyo aqiimidda dhexdooda ataxiyaadka marka aad ku jirto sujuudda waktiyadaasoo dhami waa waktiyada ducada la aqbalo axaadiid kala duwan baa kusoo aroortoo nabigu inoo sheegay calayhi الsalaatu wasalaam iyo xaaladaadu kolka ay shariifa tahay xaalad wanaagsan oo qalbigaaga uu soo jeedo oo aada khushuucsan tahay waktiyadaana inaad dadka wanaagsana inaad ka faa'iidaysato o tidhaahday duceey waxyaabaha aynu kaga faa'iidaysanayno ducada waxaa ka mid a iyo aadaabteeda adducaau lilikhwaan inaynaan walaalaha ilaawin aynu walaalaha u ducayno muslimiinta ah caam ahaan iyo kuwa asxaabta iyo kuwa ehelka iyo kuwa wax kuwa tara ee markaa wax kuu kordhiya ama wax kuu siyaadiya ama anfacooda uu badanya in iyagana loo duceeyo rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam waxa uu xusaya xadiidkii saxiixu muslim ku sugnaa qofku markuu walaalkii u duceeyo ka maqan bidahri اlgeyb malag baa ag joogo wuxuu idhaahdaa aamiin walaka bimil allaha kaa aqbala ducada adiguna intaa aada ugu ducaysay in la eg ayaad leedahay markaa malagii saasuu kuu sheegaya malaggaa shaqadiisu waxa weeye markaad dadka u ducayso inuu isaguna adiga kuu duceeyey malaa'igtana ilaahay ducadooda wuu aqbalaa taana dee wax kharashah iyo wax lacagah iyo wax hawlaho inaga baxayaa ma jireen ducadii un waa inaad caam ka dhigtaa ilaahay wuxuu ku ammaanay mu'miniinta marka had iyo jeer ay ducaynayaan waxay leeyihin rabbana kfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan walaa tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu rabbanaa inaka ra'uufu raxiim ambiyaduna saasun bay ahaayeen oo nebi waliba markuu ducaysanayo keligiima ducaysanaya mu'miniintuu ducaynaya rabbi kfir lii waliwaalidaya walilmu'miniin marka aadaabta ilaa toddobada haddii aynu ku dadaalo waxaad inta kalena waa caamo way soo hoosgelaysaaye ducada in sha allahu tacaala aqbalkeeda iyo ijaabadeedu wuu dhowaanayaa cibaadooyinkii baanay ka mid tahay markaa kolkaynu xoogaa joogna waa inaad ducaysato ilaahayna isagaa ina baray luqadahoo dhan
luqad walba isagaa ina baray oo inoo abuuray marka luqadda aad biyo gacmahaagaa laga dhargaabaa la yidhi luqadda aad u sugayso haddaad af carabiga garan kari weydo walaad af soomaaligaad ku ducaysanaysaa wixii kuu daran ayuunbaad kolba ku dadaalaysaa inaad ilaahay barida inuu kaa dulqaado subxaanahu watacaala ducadana dee kolka aad eegto nusuusta ilaahay wuu aqbalaa kolka aad eegto tijaabooyinka la sameeyeyna haddaad taariikhdaada dib u celiso intaasoo jeeroo ducadaada la aqbalay ama cid ku ducaysay ducadoodii lagu aqbalay ayaad arki karaysaa marka aadaabta ducaduna waa sidaas ducadana aynu badinna ayaamaha iyo wakhtiyada qiimaha badan ilaahayna inaga aqbalo ducadeena dembigeenana allah dhaafo laylatulqadrigana allah ina waafajiyo sala allahu calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbi waslem subxaana rabbik إلى الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان